waa goob dalxiis oo ku taala magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland. meelaha caruurta lagu ciyaarsiiyo barxadaha ballaaran ee lagu beeray dhirta cagaaran oo xilliyada casarkii iyo caweyskii lagu shaaho waxa ay kala mid tahay meelo badan oo Puntland ku yaala. laakiin arrinta ugubka ku ah inaad ka hesho meherad magaalo ku taala waa barxabaal ama ruub hadba sida aad u garan og tahay oo inta iidaan looga dhigay oodkac iyo subag lagu siinayo weelka dhaqanka Soomaaliga ee aan dibadda laga soo waaridin haba yaraatee oo xilliyada badan habeenkii lagaga cashayo meheradan. xilligan waa casar gaaban. Cawil Cabdi Cali waxa uu gudagalayaa diyaarinta barxabaalkii caawa lagu cashayn lahaa. kolkii hore waxa uu diyaarsaday biyaha, cusbada iyo burkii la xashi lahaa iyo waliba weelkii lagu qaban lahaa shaqada xashida burka. meel aan ka dheerayn waxa ka oogan dabkii oo xaabo adag la saaray si ay u sameeyaan dhuxul burka lagu bislayo. shaqada diyaarinta burka ayaa maraysa wajiyo dhowr ah. Cawil ayaan ka tooyday inuu tan koowaad ii sharaxo shaqadii uu qabanayay. marka hore waxaan samaynayaa burkii baan waxa ku shubanayaa saxankii baan ku shubanayaa. marka ku shubto cusbadiyo tuman baa dusha kaga bilbilaya ku daraya ama qasan baa ku daraya. kadibna biyaha isleeyahay markaas way kugu filan yihiin baan ku dhextarayaa burka oo qiyaas ku socota. qiyaas baa cusbad waa qiyaas, burku waa qiyaas. maxay ahayday oo burku ka badan karaa wuuna ka yaraan karaa inta ku tala gasho. inta la kala bixiyo ayaa lagu qalajinayaa daawo si looga gaashaanto in ay gasho ciidda ama dambaska. kolka la qalajiyo ayaa lagu ridayaa dabka oo lagu kala bixiyay ama lagu kala jeexay qoray loo diyaariyay oo u yaala goob gaar ah. waxaana xigta in la sugo muddo 30 daqiiqo ah si qaybta sare ee burku ay u bislaato. hadda waxaa la joogaa xilligii la rogi lahaa oo kor la soo marin lahaa dhinaca hoose si uu isaguna u bislaado. dabka waxaa labada dhinac kaga xabaalan 2 bur ah. Cumar ayaa rogay midii koowaad waxaana uu ii daayay in aan tan labaad anigu rogo. middan aniga la ii daayay Soomaa middan ana la ii daayay rogayada dhinaca ayaa ka gelinaysa si aan kaaga jabin doona soo kala wareej. rugidda kadibna waxaa la sugayaa muddo gaaban. imika hawshii aynu soo wadnay waxa ay maraysaa meel gabagaba ah. aniga iyo asxaabtayduna waxa aan tagnay weylaalis ama darin la goglay ardaaga aqal Soomaali intii si wacan loo dhisay laga jeedsay dabaysha xagaaga si aanay u baalbaalin. Cumar waxa uu soo dhameeyay shaqada bislaynta cashada burka ka samaysan. waa kan oo waxa uu ku sidaa masarafad oo inta badan loo adeegsado in hilibka loogu qaado goobaha shirku uu ka jiro. dalabka dadku waa uu kala duwan yahay oo mid walba waxa uu dalbanayaa adeega uu u baahan yahay. annaga waxa aan ka koobannahay 3 nin. waxa aan dalbanay bur iidan looga dhigay oodkac timiri uu heliso iyo subag. Cumar ayaa inoo sharaxaya shaqadii uu qabtay iyo dalabkii uu noo keenay. maxay tahay galabta dhan waxa ku jirnay maxay shaqo iyo hawl baa ku jirnay. hadda waatan waa soo diyaarinay burki waa kan isagoo diyaar baalkan galabta rufaajinaynay dadka gelinayna rogrogana waa kan subagii saxinta ku cuni lahayn waa kan isaguna waa subagii marka caanaha riyaa laga soo liso waa la dhigaa marka waxa loo yaqaan dhitayn baa la dhawa la dhitaynaya caanaha marka caanaha waa la dhitaynaya waa la yiraahdaa haanta lagu shubo goorta fariistan marka subagii halkana waa oodkici oo hilib geela weeye geel baa laga soo sameeyaa. intii aan ku guda jiray warbixintan waxaan goobta kula kulanay dad u badan dhalinyaro oo xiiseynaya dhaqanka. Maxamuud Ciise Maareeye oo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda deegaanka Puntland waxa aan wax ka weydiinay arrintan ugubka ku ah meheradaha Puntland. wasiir ka waran bal cashada cunaysid iyo goobta dhaqanka. ما شاء الله aad iyo aad baan u bogaadinayaa intii ku tacabtay iyo intii taageertay iyo intii ka soo shaqeysay intaba waxay buuxiyeen kaalin muhiim ah iyo door banaan oo dhaqankeena ku saabsana waxyaalihii laga tagayay ay dib ugu noqdeen qofkuna sidiisaba inuu dhaqankiisa iyo asalkiisa dhowro oo wax lama taabtaana. inagu inta badan dadkeena Soomaalida waa leeyeen raac ama dadka waxa cusub raaca laakiin waxa la rabaa qofku inuu asalkiisa hore uu noqdo. tirmooyinkaas inuu dhaqan u lahayn waxaynu dhaqan u lahayn weylaalsihaas cunooyinkeenu noocaas ay ahaayeen. cunooyin waxay ahaayeen la yiraahdo cunooyinkan dabiiciga ah ama organic la yiraahdo oo aan ahayn wax kiimiko iyo balal isku dardaray. burkan sidaad ka soo jeedaan waxa uu ka soo jeedaa sarreen asalkiisa hore kadib
geedka lagu dubay waxa weeyaan waa dhuxul ama qoryo halkan waxa iga muuqda oodkici oo isagana timir maxaan ku dhahay lagu dhex daray waxa uu ku jira xeero yar fandaaladii ayaa iyaguna ka muuqda dhammaan waxa isheedu qabanayso dhan waa dhaqankii Soomaalida aynu asalka u lahayn waxa ka soo shaqeeyana dabcan waa dad Soomaaliyeed warshado inoo kama imaan inta ugu badan oo halka iga muuqata sidaan horeba u sheegay waxa weeyaan waa wax dadkeenu sameeyay waliba amaanteeda gaarka waxa iska leh hooyooyinkii hore maxamed waxa uu ka yimi wadanka dabadiisa waxaana ku cusub cashada dhaqanka ka samaysan iyo inta badan agabkan yaala aqal Soomaaliga waxaan markii hore weydiinay xilli aan sugaynay cashada su'aashan maxaa filaysaa xabaal alaabtiisa wata ku soo socda aad baan ugu faraxsanahay maxaa yeelay waa markii ugu horeysay burxawaal aan wadan ku dhexeyno waa markii ugu horeysay burxawaal aan wadan ku dhexeyno xilligan waa uu casheeyay maxamed waxaana uu arkay burkii in badan looga sheekayn jiray waxa aan wax ka weydiinay bal waxa uu caawa kala kulmay cashadii ku cusbayd isaga cashadii waatii naloo soo dhigay waa cashaynay taalim haye marka waxaan leeyahay intaan waan jiray caawa eegana si fiican tahay aan ka farxad badnayn ma jirto maxaa yeelay hidaha dhaqankeena Soomaaliyeed iyo raashinkeena Soomaaliyeed ee dhabta ah caawa dhankeedaan dhameeyay maxaa yeelay hilibkiyo fresh ah aan Frencher marin aan freezen soo arkin sidiisa loo soo jaray dabka la tusay dhadankiisi aan wax loo dhiga lahayn burkii oo qamadiga ahaa oo aan sidiisa meel kale loo sii marin dhulkii iyo dhimbilka listusay macaan aan weliga arkin burkan oo inta badan laga isticmaalo baadiyaha Soomaalidu ay degto waxa uu gub ku yahay meheradaha Puntland ogaalkayga oo markii ugu horeysay aan ku arkay magaaladan Qardho ee xarunta gobolka Karkaar maxamed xasan dhalo warbaahinta Daljir Qardho